بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة لبتي وسلامتي بالكستو عاد دونك كجوكتين أنا مش شيء مقعد ذيك الشيء يصير وأوجه الشيء يصير وهو باتا كسر مخال عصر مخال كان مات وحن أوتر قلي يعني ما دام أسبوع كم خنا يوتيوب كا وحس الأسبوع عسدتك سحبته ويكون حسن والبك خصوصي أنا بدي خصوصي كذا على جيبه سكستياتو وحرام ما تشال أنا أدين صوب بندقو مخال ما أهم عضواي أن دوي سنة كي لبكون توني أفر مركان جوجي دمام سعود عربية مركب مخال كي محمود خالو وجرا عض كي أمريكا حربات مقال أهاننا مركتا وسمي سيدا مركتا وركو تمنجر عمل برنامج هرا لكن كان واقع قد ساكن وحكساب سيهاي عيارها أم بلون مركا عدك كمبيوتر كشديها لكن أنا حاسمنا بلاي باك بلاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيقة لما أنت ملكستو أدوك أكجوكتنا ومركا اليوم برنامج كيني فاقدادا عيارها boqolaal geel oo maanta la guddoonsiiyay labiska ay kaga qayb gali lahaayeen ciyaaraha UEFA Champions League ee dhici doona 2 daqiiqo kadib. Gudoomiyaha FIFA oo maanta la saxiyay isbitaalka Digfer isagoo biyo roob si qaldan u qabay. Cristiano Ronaldo oo maanta oohinta ka dhamaatay kadib markii kartoon moos uu afgooy ka soo iibsaday looga dhacay tuulo ku taal bidaarta ninka dollarka ku sawiran. Ronaldinho oo lagu arkay si dhumaaleys isagoo uga shaqaysanaya maqaayad ka mid ah maqaayadaha ku yaala Muqdisho waraysi xiiso leh ayaan idinka heynaa. gabar yar oo hal sano jir ah ayaa maanta ciiji ku dili gaartay Messi oo si sharci dar ah uga kaluumaysanaya xeebta Lido. boqolaal geel oo maanta la guddoonsiiyay labiska ay kaga qayb gali lahaayeen ciyaaraha UEFA Champions League inkastoo ay haysaneen waqti ku filan hase yeeshee la siiyay fursad kooban. xulka geela ayaa furaya ciyaaraha ugu horeeya UEFA Champions League waxayna ula dheeli doonaan xulka Masaya People. ciyaarahaasi oo ka dhacaya garoonka ka samaysan dhoobo iyo joodari wuxuuna ku dhex yaalaa biyaha badda hoostooda. dhismihiisa waxay qaadatay in ka badan 4 daqiiqo iyo 6 bilood. ciyaaraha ayaa la filayaa inay bilaaban doonto 2 daqiiqo kadib. geelasha ayaa tababar qaadanayay muddo 50 sekin ah iyagoo sheegay inay ku guuleysan doonaan koobka UEFA Champions League. xoolo far badan oo taageer u ah xulka geela ayaa soo buux dhaafiyay garoonka ciyaarta ka dhacayso halkaas oo lagu dhaariyay goolhayaha xulka geela inuu si daacad ah u kontrooli doono kubadda. gudoomiyaha FIFA oo maanta la saxiyay isbitaalka Digfer isagoo biyo roob si qaldan u cabay. taasi ayaa u sabab ahayd sabuul qoraxda lagu dubayay oo ka cunayay meel u dhow X control balcad. gudoomiyaha FIFA ayaa durbadii baqonfacay kadibna cabay biyo roob oo loogu talgalay dadka cuqdada qaba hase yeeshee gudoomiyaha FIFA oo markiiba wadnaha istaagay. ambulance gaari dameer ah oo aad u dheereeya soconaya saacadiiba 1 sentimitir ayaa lagu kaxeeyay oo si degdeg ah u geeyay isbitaalka Digfer. ilaa haatan wax war ah ka soo baxay ma jirto xubnaha kale ee FIFA laakiin waxa warbaahinta la hadlay gudoomiye ku-xigeenka FIFA isagoo sheegay in wax saameyn ah ay ku yeelan doonaan ciyaaraha UEFA Champions League. gudoomiyaha FIFA ayaa laga yaabaa daqiiqad kadib in khaliin lagu sameeyo wadnaha isla markaana loo xiro wadno kaneeco si ku meel gaar ah. Cristiano Ronaldo oo maanta oohinta ka dhamaatay kadib markii kartoon moos uu afgooy ka soo iibsaday looga dhacay tuulo ku taal bidaarta ninka dollarka ku sawiran. Cristiano Ronaldo ayaa sheegay maalmihii uu dambeeyay inuu safar ku tagay afgooy isagoo ka soo lugayay wadanka Faransiiska muddo 3 daqiiqo ah ayuu u lugeynayay Faransa ilaa afgooy. ciyaaryahanka araga xun leh ee khadka telefoonka kala xiriirnay isagoo noo sheegay in kartoon moos uu afgooy ka iibsaday looga dhacay tuulo ku taal bidaarta ninka dollarka ku sawiran. nasiib daro tuugadaas ma sheegi karo dadka yihiin buu yiri laakiin mid baan ka garanayaa haddaan sheegan waxaan ka baqayaa inuu khanjuufa igu dulo buu yiri Cristiano Ronaldo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in xaaskiisa ay ku walacday moos ku beeran afgooye. xaaskiisa ayaa iyadana sidoo kale naxdin dartiisa la hurdeysa muddo tiradeeda xitaa kalkuleetarka uu ku wareeray. Ronaldinho oo lagu arkay si dhumaaleys isagoo uga shaqeeya maqaayad ka mid ah maqaayadaha ku yaala Muqdisho. xaaskii hore ee Wayne Rooney ayaa ii soo dirtay sawirka Ronaldinho oo la xajuuno dhuxul ku raran oo sii gelinaya maqaayad ku taal suuqa Bakaaraha. maqaayadaas ayaa asalkeeda iska leh ninka dhisay garoonka New Camp. gabartan ka shiftay Ronaldinho ayaa weydiiyay siday ku ogaatay iyada waxay ii sheegtay inay aragtay ilkaha Ronaldinho oo lagu gadgaday farmashii u dhow maqaayadaasi. isla markii aanu halkaas sawir selfie iskaga qaadaya ayaan meel dheer ka arkay Ronaldinho oo dhuxul sii gelinaya maqaayada Baytiri isagoo camaamad wajiga iskaga qariyay. nasiib daro dabeel baa socotay camaamadii baa ka dhacday anigana sidaa baan ku aqoonsaday Baytiri garoobtan gafuurka xun ee Wayne Rooney uu soo furay. gabar yar oo hal sano jir ah ayaa maanta ciiji ku dili gaartay Messi oo si sharci daro ah uga kaluumaysanaya xeebta Lido. gabartaas ayaa ka xidhnaysay maraakiibta dagaalka ayaa waxay aaladda satellite-ka ka aragtay Messi oo si sharci dar ah uga kaluumaysanayo xeebta Lido isagoo indha shareer soo xirtay si loo aqoonsanin. hase yeeshee gabartan ayaa xifdisay shiirka Messi. sidoo kale gabarta halka sano jirta ah ayaa ii sheegtay mar aan wareysanayay
in uu kalluun u soo diray SMS kalluunkaasoo sheegay in xeebtan ay ahayn xeebta Argentina ayna tahay xeebta Soomaaliya ayna rabaan xornimo inay ku dabaashaan wax bay ka codsadeen gaalka wajiga sanbabka leh meel laga saar buu yiri kalluunka isla markii gabarta halka sana jirta waxay ciiji dhunta ka qabatay Messi iyagoo isu jiraan ilaa 10 kilomitir ciiji waxay qabatay tan ugu xumeed ee wifi ciiji loo yaqaano mid ka mid ah qaraabada gabartaasi halka sana jirta ayaa damintay Messi oo asalkiisaba Muqdisho damaanad ku joogay sidoo kale Neymar ayaa sheegay in gabartaasi waxay sameysay ahaa wax lagu farxo barnaamijkeeni faaqadada ciyaaraha halkaas ayuu inoogu dhan yahay halka aad kala socoteen waa TV-ga Kaftan iyo Baashaal kulantii dambe xiiso leh maxaa sugaysiinahay dhiga farta gashta warbaxa intaas waxay aad barnaamijkii faaqadada ciyaaraha aan ka kaftamay hadaa qusush waa qusush hadaa quslina maba quslinba maxaa qusush cid ku dhaasbi jirto yani waxba jabiga idin bedelay oo loo baahan marmar in jabiga la bedesho oo maaragtay wax lagu barto wax ka gedsan aan imaadin sida daraadeed waa kuma sita daawashada muuqaalka daawatay sidoo kale waxaan rabaa inaan idin sheego dad badan way weydiyeen filimkii ama television ee burcad badeed ku saabsanaa ee baaska la dhahay yani YouTube walaga saaray intee ka daawan karna waxa si dhahay haddii aad u baahatid filimka Pascal inaad daawatid waxaa ka daawan kartaa Netflix ka daaw Netflix la soo geliyay horta ani waxay arki doontaa 3 second bas wax badan ma bahaba laakiin filimkaas qisadiisa ma sha Allah aad ay u sareysaa waa true story waa qiso cajiib ah waa kuma tada daawasha muuqaalka daawata dhammaantiin insha Allah waxaan rajayna qari caafimaad bash barwaaq farxad iyo reer amar dheer super aad ku darso waxaana balanaa muuqaalka xiga waqtigaaga ka faa'iideyso